san hore idinku kala dhigay qaybtan waxay dhigaalka iyo adeegsiga afka Soomaaliga hadda waxaa nolosha la raaxay asalkii waxaa nolosha la raaxay hay'adaha ka shaqeeya waxaa nolosha la raaxay hamiga laga leeyahay laakiin af walba wuxuu leeyahay xeerar uu ku qotomo naxwo jideeya iyo ku sharaxaya sidaad wax u dhigi lahayd dhigaalkiisa aad u qurxin lahayd dadkuna ku fahmi lahaayeen sidaa daraadeed ayaa waxaan u yeerayaa cali cismaan cige macalin bare luuqado badan tiisii uu afar kale ku darsaday 5 luuqadood ula qayb ka mida uu ku takhasusay marka dhanka af aqoon baan la yidhaha kule linguistic islaamka iyo afka carabiga markay noqotona cashaan waa qof asiga naftarkiisa cilmi sareeyo ku leh marka waxaan leeyahay cali cismaan cige in uu soo dhawaado cali hadana hobby ahaan marka la yiraahdo xagga firaaqada markuu yahay waxa waaye ambassador ama danjiraha dhaqanka waa hobbigiisa wuxuu yahay maaragtay inuu aad u xiiseeyo garaacida kabanka xiise kaliya maaha wala aagta tafku ku yahay marka hadda laakiin naxwuhu nooga hadlayaa kabanka xag buu noo dhiganayaa marka cali kusoo dhawow bal aan xogaa yar wax kaa dheefnay dhammaantiin waa idin salaamay halkan waxba igu gudboon oo dib u arkay dadka halkan joogay waxba ma arkeen waa adeerkiisa laakiin okay horta aad iyo aad bay umahadsantahay luul waxayna ku amaanan tahay runtii waqti walba waxay isku abaabulka ay soo abaabulayso arrimaha wixii soomaalida la xidhiidho ama suugaanaha ah ama qadiyadaha kale ummadda soomaalida haystaba ahaatee luul aad bay u dadaal badan tahay markaa taasi waa inaan uga mahadnaqnaa marka labaad waqtigaan haysta waayo mise 10 minute baa loo leeyahay 10 minute ma sabay 10 daqiiqo waqti yar baan haysta ka cadiya marka waxba ma soo qorin anigu sababtoo waxaan doonayaa inaan ka hadlo maskaxdan ku wada hayaa waxaan doonayaa inaan si gaar ahaan aan uga hadlo afka Soomaaliga qoridiisa marka la qorayo haddaad website-ada gashin oo siraadaan bal akhriya Soomaaliga maxaa warqadda la idin qiimeeyo dad imka akhriin يا بيت اللي تقلب جدا حق النعمة وكان وصف عمر على عيال تاريخي وحكم شكله وان دقا في الصومالية تدنوش لهم دقا إنجليش كوان دقا عربي دوان دقا نوش كوان دقا من أفضل نحوها نقاد تخصصوا حن نحوها لأنه نقاد يسقع يا وياش ما دام عشان أفكرتي وأفكر إنه كم دي هاي وحن كأفكر كرو مركز القرية ده سيف على القرية إنجليش كالو قرية wax alla wax madooda ku jira ma jirto gaar marka keena la qorayo marka maxaa dadkii baan isku hawlay koow dadku ma yaqaan naxwi oo la yaab militaas burburkiyo wax bay nagu dhacay dadkii laakiin xataa dadka wax bartay qofka English ka sabcan bartay ama nooshka garanaya siduu dhismuhu naxwi yahay kiisa muxuu ugu dambeeyay waa isweydiinsa يعني muxuu degdegayaa tarin baa ka tagaya markuu qorayo SMS marka la isku qorayo hadda si fiican qorto wax badan qof aad u dirayso loo fahmi lahaa adiguna maartay hawlo badan oo waxaan isku dardareysay suuda ayaa ku kala maartay kala qeexaya waxaan si gaar ah doonayaa inaan hadlo maanta erayada yaryar ee Soomaaliya kuwa yaryar baan doonayaa waa toon waa waqti aad oo badan ma taaban karo laakiin waxaan si gaar ah ugu dadaalay inaan u fiirsado erayada yaryar maxaad u maleynaysiin erayga Soomaaliya ugu yaryar masaxraf ku koobiya يا بل أنا سوداني وحقا مداني حرف كله كوبيا محاكمة ده مثلا وقبل كده شيء تاس يا سيدا إيه أوكل أو أوكل مركا لو قرية لكن الرياض هاي وحكون حمان أفكر أنتي سكلة جارهان وحن مجا الله يرى مثل ناونسكا يوفيرسكا يعني فالكا وحكون كل حمان مجا ويالك أنا هذا قرط أنا هنا هذا قرص أنا هنا وضع صدرها وفصل أما أنا هو ويل بقى قبل كورنيا ومش عارف مركز يدور رسالة أنا هو
أنا بقى ما كنت علينا ترى مبهر ودنت أنا بقى بعد هذا بقولوا قرويدو معني هو باي مركا وقت سمرت ما هذا أما بور هو أما بور كنت سنو أنا حرف ككوبر إيه أما أوقع إلى ما تقول أشياء مركو إروين أنتي سلو قرو سو حاصل كمان هل كسرت كرنسا كان إريال وين أيام لقي إريال قال بقول أول كم تحقق قال لول إلى ما هذا شبر قرب مركز قرية لول إلى ما أو كلمة قرآن يحضر شو وصدق ناش بنقول أنا إنجليش بنقول لي أنا شو أوكي لول doesn't speak to me لول doesn't talk to me بالقرآن وري أما لول سناكر كيما معي أوكي شنو بينو قرصة يسوون صدق القرآن مركز أقول لك قلبي كلاعو اللي نقول إحنا مشان هذيك كلهم مركز إريال ينو يسلقان أو ولا سكوت ترى إريال وينا وحوجان مركز إلى ما حتى في سطوة قبل أستري وعقب كمان تاي مركز قفكي أنا أوكي حتى بقى لول does not speak and talk to me دي أول هذا الدواء كم صور حسنا في ماشي نمرهم القرآن كروب لما ستعفر شنبه نقطة كيننا سنحبه نقطة سيدو بيجي كتر مهلا أما ناش بعدين ما يدي كمان حيلا يقف في سوماليا مركز دباتوي كسجلته إلى ما مركز القرصة وكرية الله وكرية ما أنا وكرية حسب درس ما حد يحكوا يتصادق هبل ما شوقا صوتها ما تقول دسكتها مركز عارقة صوتها ما تقول ما إيمان يسا صوتها ما تقول قرية ما حد لا تقول موجود هبل هبلايو أيو لا صوتها لا قولي لك وتنت لعكتها إيه سي إيه يقول له تنت مركز القرية مركز ما حد إلى ما حد يقدر يزمتها هو حلا يعمل يعني احترام بلد كوهين أفكي بلد احترام مهم أفكر باحترام كوهين تاسو كلام حكم ده إيه واحد ما تدفن أرتكل كي الله يرحمه استمتع أرتكل هذا الطفل كتير ما بقول أفكر إيه أما أنت بدمها ضد بدل نوش قرني ضد بدل جوا نوش قرني لما أدوك الربا في السنة يسوع مركا ما يدوح شيء أفكر ما توصل على إنجليش لغة بقى كوركس وكاسة تكون بديها ساسا كده حاجة غلطة واحد رأس مثلا جوري هي وحويان الهاوس مركا في إنجليز إيه بالو تريا إنه حكومة تريا حكومة رئيسنا وأمريكا بدنا نسوي حكومة تاي إندفرنت جوري بان حمل كريستي أوكي هذا جوري سيوريو جوري وحكوا أجي اللي كيدوي جوري جاب برمك أو نيا واحد كان يوم كان دفن أرتكل واحد ده مكتاز أوكي هذا ترى جوري جاي هبل بعيد تجري إنجليز ده تطلع علي أنا أحمد live with me my house ده ترى مثلا الصومال هذا ترى جوري جاي جاب هذا نسوي جوري جاي واحد يقول إنه عشية يحسن برجع جوري جاي جاب أنا بكرة يوم بريا English my house the house ko kala jiray oo la haashi adu maxaa isku daraysaa marka hadii ka dhaw waxa guriga kayga weeyaan beelaha Soomaaliyeed qaarkood baasta qeexan wax hadla guriga anaga iyo kayaga xayga galbeedka Soomaaliyeed marka ha ku darin lahaanshaha maxaa ku daraysaa guriga kayga laakiin marka degdegayso waxa u gurigayga waxa ka timid waa guriga kayga marka haddaad ka reebto guriga aadaad ka reebto oo lahaanshaha doonaysa inaad isticmaasho waxaad qori kartaa horta wax waa inuu heshiyo akaadimo Soomaaliyeed waxaan taladan gaadha ama hal aan gaadho aan uga dadaalaya inaan afkii maartay aan qalas xoolaha loo qoro maartay wax walba meesha aad dhigto ma noo jeedaa waxaan go'aanada wax ka gaari karo wax walba markii dawladda jirto institutions iyo muassasaad cilmiya jiraan iyo waxa laga gaadhaa laakiin qof walba dadkii afkii maxaa la yidhi cidlo maqna loo jeedo qof walba isagu khaasatan dadka tacliinta leh iyagu waa inay isfaraano oo yidhahda qof walba kuwa dadka wax bartay waa yidhahda aan ku dadaala afkayga saaro ama uri lahaa ilaa inta institution naga dhexeeya muassasada naga dhexeeya la helayo marka waa waxyaala yar oo caynkaas erayada yaryar way badan yihiin haddaan misal markaa idin siiyo iyagaa ilamaarta maanta focuska saaranahay iyagan maarta ihtimaamkii la siinayna waxaa ka mid ah ila dhahalka doonaysiin waa ka mid ah waa ka mid ah marka waxay ka kulmaan xaraf kaliya
waxay ka kulmaan 2 xaraf waxay ka kulmaan 3 xaraf waxay ka kulmaan 4 inta badan 4 baa u badan والقصريس هذا من وحنا قرية بعد أيان وان وحان وحصل الله سبحانه ولك الويكا وح عن مركل هذا وان بالانس دائما ودقدقي سهل لكن كان قريسو قف كل ما تشوف وكان مقيه مركل ثقة الله هو آخر قلب هذا العلم تضيف فرين درس ويصدر أفضل واحد لا كوم ما نحن غير يقف كل اللي برا لا وقت يوجدها لكن إيه يو سي يسي يصو يلا يما يكا يكو يو قادر وكلا وكوير وقوة كل ذلك إلى إذا كنت الواحد سيدا يصنع سكلا كيدا تيدا تيدا بوني ولا قطع ما إنه كل شيء ما نعم إنه كل شيء نعم وحكم تلك الكرية وحكم كده يا مارتي إلا يصلح عنه definite هذا من كل قول ورجع وحكم قدر ورجع كيا ودون وقتها ويجوا وقتها مش حرام ولا ولا تنتهي ما أعرف وحنا دونت إن شاء الله تعالى إن هذا الكي سؤال لو يدين كرادة أنا قلت لك سؤال بدر ولا فريدة كلام تاني قارن waxaas ilaahay mahadiisa akademi goboleedkeeni nala joogto representantgeedii alshan matalaheedii ama wakiilkeedii uu nala joogo waxyaalo badan oo cali uu ka dhawaajiyey alashan ay tahay shaqadii akademiyada oo maaragtay nahagi lahayd nahoga tusaaleyn lahayd na siin lahayd jadwal aan ku hagano waan ka gudbi doonaa waxaan u gudbaynaa taasi cali shaqada aan ka sugayay naxwahoo dhan bay ahayd laakiin wuu kala goostay maadaama waqtigu ku yar yahay wuxuu raacay kaliya higaada hoose laamaha naxwuhuna markaan xagga tagno iyo su-aasha aniga su-aalaha iga buuxayay ka mid tahay insha allah